wacan ku soo dhawaada stuudiyaha magaalada Melbourne ee SBS laantafka Soomaaliga waxa caawa martii ugu ah barnaamijka Cabdiwahaab Booska oo ah fanaan Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Barnaamijkan guud ahaan waxaynu ku eegi doonaa taageerada dhanka dhaqaale loo fidiyay Allaha caafiya Cabdi Tahliil Warsame fanaankii qaranka Soomaaliyeed ee ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya. Cabdiwahaab ku soo dhawaad stuudiyaha Melbourne. mahadsanid baafo wadaway wala Cabdi Tahliil Warsame muddo badan ayuu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho iyadoo dad aad u fara badan ay iska indhatireen laakiin qaybta saxaafadda ayaa soo bandhigtay xanuunkiisa iyo sidii wax loogu qaban lahaa maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto caawinaadda fannaankeena caanka Cabdi Tahliil waxa igu dhaliyay damiirka iyo dhiigga waan isleeyahay Soomaalinimo kadib markii aan daawanay Cabdimaalik Muuse Coldoon barnaamij uu soo duubay barnaamijka waxaan ka bilaabay magaalada Melbourne xaafadda Flemington waxa noo hirgalay runtii lacag fara badan baa u qabsoontay anigoo wax badan marka hore Ilaahay baa mahadle kadibna ummadda Soomaaliyeed waa u mahad celinayaa oo ku dhaqan magaalada Melbourne waxa aan safar u tagay magaalada Sydney isla markaasna dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaggaas ku dhaqan ayaan u gudbiyay markii aan u sheegay waxay ugu deeqeen laftoodu lacag runtii maaragtay wax gal ah waayay lacagta guud ahaan hadda aad qabateen imise la eg tahay Australian ahaan had markaan ku sheegno dollarka Australianka Australianka lacagtu $13,000 oo dollar bay maraysay 10,000 oo US bay noqonaysaa markaas markii lacagta Mareykanka la yiraahdo maadaama aad caawa marti ku tahay stuudiyaha SBS Cabdi Tahliilna barnaamijkiisa aa wado waxaan la soconaa in Cabdi Tahliil heesiisa adigu aad ka mid ahayd ragga sida aadka ah ugu luuqeeya bal caawa maxaad aad ku xusuusan kartaa Cabdi Tahliil heesteen noo soo qaban leh jacayl trogan maayo oon ilaafin maayo ayrawiran madaayo niliyaamusi maayo ergegeesi madiido aylahtiisu moosho alaflash kamoodo oo baxtay ma qarsoomo on kodraj kuma waayo aylahtiisu moosho alaflash kamoodo oo baxtay ma qarsoomo on kodraj kuma waayo ilka laysma gargaaro abuur layskama baaje nafsihayga maahan ahdigiina dhaxiiliyo ayloobin aqoontii runtii inta daawanaysa inta dhegaysanaysa intuba kolley way jecel yihiin waa fanaankoodii eraydaas haddii aan tix raacno soo ma habboona marka in laysku turo ileen aakhira markii la tago
cidina wax istarimaysa waxa la isu baahan yahay waa inta la nool yahay waana muhiim in wax la taro isaga iyo qof kastoo Soomaaliya oo dib ku jira. Cabdiwahaab yaa garab kugu siiyey oo halkan aad ugu mahad celinaysaa marka laga yimaado guud ahaan Soomaalida wax bixisay gaar ahaan waxaan runtii lama ilaabana oo aan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarta reer Sydney sida sharafta leh ay gacan uga geysteen waxa Melbourne aan يعني suuragal noo noqdeen barnaamijka ama programkii aan u dhignay la aantood maamo Xaawa Cabdulqaadir Dheel iyo gudoomiye Xarakow oo jaaliyada iyaguna community-ga runtii qiimo weyn u sameynaya shaqo badan oo haya waxaana leeyahay waad mahadsantihiin. waxay kamid tahay heesaha jacaylka oo qaado Cabditaali Warsame in ilaahay caafimaad ha siiyo runtii macnaha aad baynu uga xunahay in sida uu xanuunsaday ummadiisii uu ka dhashayna aanay waxba u tarin oo uga seexdeen laakiin waxaan rajaynayaa kolba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin weyni ma dhumo laakiin wuu soo daahaa marka waxaan isleeyahay Soomaalidu ma dhunto laakiin way soo daadaa kolba way gaarsiin doonaan wixii ilaahay uu soo qaaday. Jahaylan yatilneban aburo adogido intanu dubkiisi mudayban ilaasho wanadkeeyo abaydi sidii u dhowriye Jahaylan yatilneban aburo adogido markan kulahaa ugaasho ujeeda fog baan lahaa afeef hadalkan lahaa ammaanada dhowr lahaa waxaan malaynayaa runtii qofkii ummadda wax u ahaa oo intaasoo sano u heysiyey oo macnaha entertainment u sameeyey oo dadka iyo dalka u shaqeeyey maanta sariir buu saaran yahay marka heestiisa lafteedu dee dhammaystir ma yeelan karto.